bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan idinku soo gudbinayaa 3 hab ama waddo oo aad waqtigaa ku maarayn karto isla markaana aad ku lamalaabi karto wax soo saarkaaga maalin walba ku soo dhowaada meecaad podcast fadlan subscribe garee oo taabo jalaska si aan mowduucna kuu dhaafin ha ilaawin share iyo like لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر mowduuceenna maanta wuxuu ku saabsan yahay in qof kasta oo inaga mid ah uu sameeyo wax soo saar ka badan intii hore u samayn jiray waxaa la yidhaahdaa qofka bini'aadamka ahi waa waqti soconaya cadceed kastoo dhacdana waa qayb ka mid ah noloshiisa oo dhammaatay isla markaana aan dib u soo noqon doonin haddaba 3dan hab ayaa ka caawin doona inaad ka midho dhaliso maalinta iyo waqtiga aad haysato qodobka koowaad habeen kasta inta aadan seexan diyaari qorshaha aad berri ku shaqayn doonto waxaa la yidhaahdaa 1 daqiiqo oo aad qorshaysatay waxay kuu tashiilaan 10 daqiiqo oo waqtigaa ka mid ah qoraa wax ku qora degal la yidhaahdo medium ayaa wuxuu qabaa in haddii aad habeen ka hor qorshayso waxaad berri qaban lahayd inaad yaraysay walwalkii iyo dadaalkii badnaa ee kaaga bixi lahaa kala horidda shaqooyinkaaga maalinlaha ah sidoo kale wuxuu leeyahay waxaad ilaalisay awoodda aad ku qabanayso howlaha muhiimka ah sida kaliya ee waqtiga looga midho dhaliyaa waa qorshayn wanaagsan hadday tahay sanad wixii ka badan iyo wixii ka yarba amaba qorshaha guud ee noloshaada sidoo kale waxaa lagaa rabaa inaad awoodda saarto saacadda ugu horreysa maalintaada waana waqtiga kaliya ee laysku dhaafay adduunka Brian Tracy qoraa Maraykana isla markaana ah tababare caalami ah wuxuu sheegayaa inuu 3dan hab maalintiisa u diyaarsado wuxuu leeyahay waxaan qaabeeyaa oo qoraa howlahayga maalin kasta anigoo adeegsanaya qalin iyo waraaq ama aaladaha casriga ah waxaan u kala horumariyaa sida ay u kala muhiimsan yihiin 3 kadibna waxaan uga horqabtaa ta ugu muhiimsan halkaas waxaynu ku ogaan karnaa in qof kasta oo adduunka saameyn ku yeeshay uu leeyahay maamulidda waqtiga Elon Musk mucjisada aragtiyaha ee iska leh Tesla SpaceX iyo shirkadaha la midka ah oo sameeya gawaadhida iyo sawaariikhda cirka wuxuu aaminsan yahay inay qasab tahay in la shaqeeyo xilli kasta oo dadku soo jeedaan si wax soo saar fiican loo gaadho waxaan seexda ayuu leeyahay 1 habeenimo waxaana soo kacaa 7 subaxnimo wax kasta qorshayn ayay ku hirgalaan Said Yunus waa youtuber caraba wuxuu leeyahay waa khuraafaad in hawl kasta loo sameeyo waqti go'an balse hawsha ugu muhiimsan qabo xilliga ugu horeeya Nate O'Brien waa halabuur ganacsi oo dhalinyaro ah wuxuu leeyahay muhiimadda in wax la qorsheeyo waa wax soo saar wanaagsan ugu dambeyn habeen kasta buu gacmeedkaaga ku qor hawl kasta oo aad berri qabanayso isla markaana u kala horreysii siday u kala mudan yihiin qodobka labaad qaado qaacidada 80-20 rule qaacidadan waxaa loo yaqaanaa 80-20 rule ama Pareto principle waxa dhaliyay dhaqaaliyahan reer Talyaani ah oo la oran jiray Vilfredo Pareto 1895 waxayna ka timi in waqtigaas dhaqaalaha waddanka Talyaaniga ay gacanta ku hayeen 20% bulshada ka mid ah kaliya qaacidadan waxay sheegaysaa in wax kasta oo aad gaadhay ay ka timi maxsuulka ama haddaynu si kale u dhigno inaad imtixaanka kaalinta koowaad ka gasho waxa keenay 3 saacadood oo aad wax akhriyi jirtay maalin kasta tusaale kale shilalka gawaadhida waxa yareeyay 20% bulshada ka mid ah oo raacay shuruucda wadamarista iyo xeerarka u yaala qorshe kasta oo aad maalintii qorato waxaad kala baxdaa 2 qodob ee ugu muhiimsan ogow wax kasta oo horumar laga gaadhay waxa sameeyay 20% bulshada ka mid ah hadday tahay dhinaca dhaqaalaha caafimaadka wax soo saarka iyo siyaasadaba haddaba haddii aad rabto inaad qabato sida hawluhu u kala muhiimsan yihiin waxaad raacdaa qaacidada Brian Tracy uu ugu magac daray ABCD method ee ku taala buuggiisa Eat That Frog ama cun rahas wuxuuna u dhigan yahay sidan waa hawlaha aadka muhiimka kuugu ah ee la rabo inaad hore u qabato things you have to eat first B waa hawlaha la rabo inaad qabato laakiin aan muhiimka ahayn sida inaad saaxiibkaa la soo qadayso qofka soo wacay aad ku celiso iyo wixii la mid ah C waa hawlaha ay tahay inaad qabato laakiin aan wax cawaaqib ah ka imanaynin haddii aanad qaban waa hawlaha aan muhiimka ahayn sidoo kalena cid kale ku qaban karto sida in gaadhigaaga lagu maydho haddaba waxaa muhiim ah in hawlaheena oo dhan ay noqdaan kuwo muhiim u ah nolosheenna isla markaana loo qabto sidii loo qorsheeyay iyo wax ku dhow hawlahan aynu soo caraboonay ma shaqaynayaan haddaad tahay dadka waqtigooda in badan ku qaata maqaayadaha iyo meelaha taroogta laga shubo
waa inaynu ogaanaa in ilaahay waqtiga uu ku dhaartay sida walcasri wadduxaa, taasina waxay ku tusaysaa muhiimadda uu waqtiga iyo xilligu leeyahay. qodobka saddexaad, waxqabad kasta u samayso deadline ama waqti jaan go'an. sidee hawl kasta aad waqtigeeda ugu dhammayn kartaa? ugu horreyn, waxaad qorshaysataa waxaad qaban karto keliya, hana iska lifin. markaad wax qorshaynayso, xiisahaaga iyo caadifadaada hoos u dhig. baro inaad tidhaahdo maya. qof kasta way ku adagtay inuu yidhaahdo maya, hawshaas ma qaban karo, laakiin ogow waa qodob lagu kala horumaray. mawduuc gaar ayaynu ka samayn doonaa qodobkaas insha allah. laakiin marka aad qaadato go'aanka maya, waad dareemi doontaa isbeddelka wanaagsan ee ay keeni doonto. markasta hal shaqo isugu geey fiiradaada oo dhan si aad u hesho maxsuul wanaagsan. dad fara badan ayaa ka cawda fiiro la'aan iyo inay ku adag tahay inay hal shay dareenkooda wada siiyaan. inta badan taas waxaa sababa qaabka nololeed ee shakhsiga, cuntada uu cuno iyo heerka jimicsiga uu sameeyo, iyo sidoo kale warwarka iyo walaaca adduunyada. ugu dambayntii, waxaynu ka soo hadalnay muhiimadda waqtiga 3 qodob oo ka caawinaya inaad samaysato maalin iyo waqti midhodhal leh. 1. inaad habeenka hore diyaarsato shaxda shaqada berri kugu taalla oo qoraal ah. 2. muhiimadda qaacidada 80-20 rule oo sheegaysa in wax kasta oo aad qabanay aanay wada muhiim ahayn, islamarkaana 20% keliya ay ka saamayn badan yihiin inta kale. ta ugu dambaysa oo ahayd hawl kasta oo aad qabanayso inay lahaato deadline ama waqti go'an oo aad rabto inaad ku dhammayso. ugu dambayn, iska ilaali inaad hawlaha dib u dhigato. bulshadeenna dhibaatooyinka ugu badan ee haysta ayay ka mid tahay. waqtiga aad bulshada la qaadanay waa inuu noqdaa waqti u gaar ah oo aan ku dhex jirin shaqooyinkaaga. naftaada habeen walba xisaabi wixii aad maalintaa qabatay, islamarkaana subaxii adigoo muraayadda hortaagan isweydii, hadday maanta tahay maalintii nolosheeda iigu dambaysay, maxaan jeclaan lahaa inaan qabto? aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.